golaha wasiirada xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maanta kulan isugu yimid ayaa looga hadlay xaaladda guud ee amniga dalka iyo howlgalladii ugu dambeeyay ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka oo guulo waaweyn looga soo hoyay dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta iyo sidoo kale doorashooyinkii dhowaan sida guusha ugu soo dhammaaday caasimadda. kulanka oo uu shir gudoomiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo uu heliyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda mudane xamse cabdi barre ayaa hadal jeedin looga dhageystay madaxweynaha Jamhuuriyadda oo si faahfaahsan uga warbixiyay xaaladda guud ee dalka isagoo si weyn golaha ugu bogaadiyay kaalintii muuqatay ay ka qaateen qabsoomidii doorashooyinkii qof iyo cod ee dalka ka dhacay 25 Diseembar 2025 taas oo madaxweynaha ku tilmaamay dhacdo taariikhi ah oo dad badan ay shaki qabeen in ay qabsoomi karto. madaxweynaha Jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay duulaankii qaawanaa ee lagu soo qaaday qarannimada iyo madax bannaanida dalka isagoo sheegay in guulo wax ku ool ah laga soo hoyay tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee ay dowladdu kaga jawaabtay arrinkaasi isagoo golaha kula dardaarmay inay si wadajir ah u waajahaan difaaca dalka. madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa wasiirada ku booriyay in si midnimo ah wadajir ah wada tashi ah ay ku wajahaan xaaladaha dalka iyo u adeegista shacabka. golaha wasiirada ayaa ansixiyay 2 heshiis oo muhiim u ah qaranka iyo iskaashiga dowladaha saaxiibada la ah Soomaaliya waxayna kala yihiin 1 heshiis is-afgarad oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Uganda oo ku saabsan iskaashiga amniga. 2 heshiis is-afgarad oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ku saabsan iskaashiga gaadiidka badda. sidoo kale golaha wasiirada ayaa meelmariyay hindisa sharciyeedyada iyo siyaasadaha soo socda. 1 hindisa sharciyeedka cadeymaha. 2 axdiga caalamiga ee halbeegyada tababarka iyo shahaadasiinta ilaalinta badmaaxiinta 1978. 3 xeerka dhismaha machadka Soomaaliyeed ee badaha. 4 xeer nidaamyaha sharciga dhowrista xogta dadweynaha. 5 siyaasadda qaran ee naafada Soomaaliyeed. ugu dambeyntii golaha ayaa warbixin ka dhageystay wasiirka batroolka iyo macdanta mudane daahir shire maxamed oo ku saabsan howlaha soo saarista shidaalka ee dhowaan dalka ka bilaabanaysa iyo sidoo kale warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha dalka oo uu jeediyey gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka